kulanti wanaagsan aqyaarta nala socota ku soo dhawaada faaqidaada labaad ee caawa iyo qubanaha Barrow Show qodobo xiiso leh oo dhinacyo kala duwan taabanaya ayaan idin hayaa. Dowladda Saudi Arabia markan waxay u muuqataa in ay gobolka Hadramaut ee wadanka Yemen ay kaga adkaatay dhinaca Imaaraadka Carabta. ciidamadii Imaaraatiyiintu ay halkaasi geeyeen golaha kumeel gaarka ah ayaa laga qaadayaa Al-Mahra iyo Hadramaut iyadoo qaxdaani generaalka lagu magacaabo ee Sacuudiga ay soo magacaabeenna uu hadda bilaabay qorshe lagu daabuli lahaa ciidamada halkaasi la geynayo. ciidamo cusub oo dowladda Sacuudiga garab ka helaya ayaa halkaasi galaya. Imaaraadkuna waxa ay aqbaleen in aanay Sacuudiga isku dhiririn karin. generaallo ka wada socda ciidamada dowladda Sacuudiga iyo kuwa Imaaraadka ayaa ka degay Cadan iyagoo la kulmay saraakiil kala duwan oo ka socota dowladda rasmiga ah ee caalamku uu aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Yemen. marka la eego xaaladda wadanka Yemen, Sacuudiga ma waxa uu u muuqanaya inuu kaga adkaaday Imaaraadka loolankii halkaasi ka taagnaa. Xuutiyiinta oo dhinaca ay taageeraan dowladda Iiraan sida iminka loo arkaa xaaladooda. wadanka Yemen jaha cusub oo siyaasadeed ayuu qaatay loolanka badda cas ayaana waxaasi oo dhan sabab u ah. Imaaraadku waxa uu u muuqanayaa jab siyaasadeed iyo waliba mid diblomaasiyadeed inuu ka qaadayo goboladii weerarka uu ku qaadayay iyadoo 24 saac ee ugu dambeeyana ay qulqulatooyin xoog la wajahayeen. waxaan isugu ka xiri doonaa dhacdooyinka ka taagan min Tripoli oo Liibiya ah Benghazi ilaa la soo gaaro wadanka Suudaan oo iminka dagaallo ay culus ay ka taagan yihiin. jahwareerka siyaasadeed ee Imaaraadka ayaan dul mari doonaa inagoo dhinacyo kala duwan ka eegi doona arrintan. dowladda wadanka Lebanon qayladhaan ayaa aflabadii furatay kadib markii wasiirka amuraha dibadda uu ku dhawaaqay dowladdiisa inay wajahayso qalqal xoog leh oo ku saabsan in Israa'iil ay bilaabayso qorshaha dagaal saf ballaaran ah oo lagu qaadayo gudaha wadanka Lebanon. hase haatee caawa sidoo kale waxaa ka dhacay gudaha wadanka Lebanon duqeymo culus. sida wuxuu soconayaan barnaamijka ayaan ku eegi doonaa. dowladda Mareykankana waxay sheegtay in ciidamada caalamiga ah halkaasi la geynayo ay la sii ogaado in aanay ujeedadoodu ahayn duulaan lagu qaadayo dhulka Falastiiniyiinta gaar ahaan kooxaha hubeysan ee sida weyn uga soo horjeeda Israa'iil oo ay ka mid yihiin Hamas. arrimahan oo iminka la bilaabay si weyn in loo faaqido ayaan barnaamijka ku eegi doonaa. bariga dhexe ilaa iyo bariga Afrika ayuu barnaamijkan dulmeer kooban ku sameyn doonaa khiyaarta inala socota. ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara shargareeya muuqaalka saaxiibadiina la wadaaga. qaybta hoose ee faaladana inoogu qora commentigeena sidaad u aragtaan. aad baad u mahadsantihiin. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar. aan ku horeeyo wadanka Yemen. maalmihii la soo dhaafay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay bilowday gobolada ku teedsan dhinaca wadanka Sacuudiga ee wadanka Yemen in ay ku daabulaan ciidamo gooni u goosad ah isla markaana qabsaday gobolada Hadramaut iyo halka loo yaqaan Al-Mahra. deegaanadan ayaa ciidamada qabsaday waxa ay doonayeen sida ay ku dhawaaqeen maamul hoosaad ka gacan banaan kan dowladda Cadan ee caalamku uu aqoonsan yahay. laakiin arrintan dowladda Sacuudiga ayaa u aragtay inuu yahay caqabad weyn oo amniga wadankeeda halis ku ah isla markaana saameyn ku yeelan kara ceelasha shidaalka ee Aramco ay gacanta ku hayso waa shirkadda reer Mareykanka. hase haatee dowladda Sacuudiga ayaa bilowday dhaqdhaqaaq xoogan maadaama dhaqaalaha ugu badan ay ku bixiso dowladda caalamku uu aqoonsan yahay ee saldhigeedu yahay wadanka caasimadda hadda u ah Cadan maadaama caasimadda Sanca ay kooxda Xuutiyiintu maamulayaan. marka la eego xaaladda sida ay u socotay qabaa'ilka Imaaraadku ay gacanta siinayeen iyo ciidamada gaarka ah ee shacbiga loo yaqaano ayaa waxa iminka muuqanaya dowladda Sacuudiga in si degdeg ah arrintan ay u soo fargelisay. generaal lagu magacaabo qaxdaani ayaa Hadramaut iyo Al-Mahra loo xil saaray waxana uu bilaabay halkaasi booqasho kala duwan inuu ku gaala bixiyo. odayaasha Hadramiyiinta ah ayuu la kulmay waxana uu ku yiri suuragal maaha halka dagaal in laga rido oo dowladda Sacuudiga ayaa saameyn xoogan ay ku yeelanaysaa arrintan.
inta badan dhaqaalaha dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ay ku shaqeyso Riyaad ayaa bixisa taasina waxay dhalisay loolankan culus imaaraadka haatan in ay si weyn isku hayaan arrinta ugu xoogan waxay tahay calasha shidaalka ee ku yaala Xadralmawt iyo waliba dhulka wax soo saar kale dekadaha iyo deegaanada kala duwan ee kulaala badda cas in imaaraadku ay gacanta ku dhigaan iyadoo ujeedooyinku ay tahay halkaasi dowladda Sacuudiga inay kaga awood bataan laakiin Sacuudiga ayaa waxay ciyaareen kaarto siyaasadeed oo diblomaasiyad ku dhisan kadib markii isku soo dhawaashiye ay la sameeyeen dowladda liiraada Iran isla markaana kulan ka dhacay magaalada Dahraan oo Shiinuhu garwadeen ka ahaa labada dhinac ay isku soo dhawaadeen arrintaas ayaa noqotay dhabarjab weyn oo ku dhacday dowladda isu taga Imaaraadka Carabta taasi waxaa sii dheereed markii dowladda la yiraahdo Mareykanku ay cunaqabateyn ku soo rogtay shirkadaha ay ka soo qaadaysa calooshoodu shaqaystayaasha dacmo sariic taageera ee wadanka Suudaan ujeedadooduna ay ahayd dekada Port Sudan ee badda casaaran in ay ku qabsadaan inta badanna macdanta iyo waliba dahabka wadanka Suudaan ay ku qaataan ganacsiga halkaasi marayana Imaaraatiyiintu ay maamulaan hasaatee dowladda sidoo kale Ingiriiska ayaa maanta ku dhawaaqday in 4 ka mid ah hogaamiyaasha silsile ee kooxda dacmigu ay ku soo rogeen cunaqabateyn dhinaca safarka ah iyo waliba hantidoodii in la xayiray ragga cunaqabateynta lagu soo rogo waxaa ka mid ah Hamdan Dagalo hogaamiyaha kooxda dacmo sariic maamula walaalkii oo lagu tilmaamo ninka ugu weyn ee hadda Imaaraadku ay sida weyn u wada shaqeeyaan iyo Abu Lu'lu oo ka mid ah saraakiisha ugu awoodda badan kooxda dacmiga oo Imaaraadka gacan saarka la leh arrimahan oo dhan marka la isku geeyo waxa ay muujinayaan jabka degdegaya ee dowladda Imaaraadka ee la xiriira qorshahoodii badda cas iyo waliba bariga dhexe iyo geeska Afrika dowladda Sacuudiga ayaa toddobaadkan martigelisay oo u yeertay madaxweynaha wadanka Eritrea Siyaasa Fawarqe waxaana ay kala gorgortamayaan dekada Casab iyadoo dekad ku taala wadanka Djibouti horey looga kireystay Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweyne muddo dheer fadhiya talada wadanka Djibouti arrimahan marka la isku geeyo iyo waliba dhaqaaqyada ka soconaya wadanka Yemen waxa muuqanaysa dowladda Imaaraadku inay luminayso door weyn ay ku lahayd dhaqdhaqaaqa gobolka bariga dhexe iyo waliba bariga Afrika hasaatee iyadoo taasi garawsan ayaa markan waxa ay garabka u raaricinaysa dowladda Sacuudiga waxana ay aqbalaysaa ciidamada golaha kumeel gaarka ah oo ay geeyeen Al-Mehra iyo Xadralmawt inay halkaasi ka soo saaraan sida uu ku waramayo wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm oo si weyn u faallaya gobolka Carabtu ay degaan wargeysku waxa uu leeyahay ila lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay Al-Arabiya guddi military oo Sacuudi iyo Imaaraadka isugu dhafan in maalintii Jimcaha ahayd uu gaaray magaalada Cadan si ay uga wada hadlaan qabyatirka qorshaha lagu saarayo golaha koonfurta Yemen ee loo soo gaabiyo STC ee ku sugan gobolada Xadralmawt iyo Al-Mehra oo bariga Yemen ku yaala si loogu celiyo saldhigyadii horey ee uga soo kicitimeen ka hor inta aanay ku soo duulaan tagin qalabka iyo waliba qorshaha dowladda Imaaraadka sida ila xog ogaala ay sheegayaan booqashada guddigan ayaa waxa sidoo kale ay ku wajahan tahay in maamulka labada gobol lagu wareejiyo ciidamada la yiraahdo Diraac al-Wadan kuwaasi oo inta badan dhaqaalaha ku baxa dowladda Sacuudiga ay bixiso iyadoo la raacayo baa la kala wareejinta lagu fulinayo kormeerka iyo hagidda isku duwaha hoggaanka isbahaysiga militariga ee dowladda Cadan ay korjoogtada ka noqonayso haddaba maxay tahay doorka dowladda Sacuudiga ay leedahay iyo lasha ka dambeeya arrinta wadanka Yemen ay sida ula falgalaan boqortooyada Sacuudiga ayaa ku adkaysay in mudnaanta la siinayo xasiloonida amniga iyo horumarinta wadanka Yemen bedelkii wadankaasi la gali lahaa dagaal sukeeye oo ay riiqdoodu dheeraato iyadoo xoogga saaraysa fursadaha siyaasadda ay uga faa'iideysanayaan dhammaan dhinacyada Yemen lagu hogaaminayo mashaariic dhaqaale iyo horumareed halkii wadanka la gelin lahaa khilaafaad hor leh iyo dhaqaaqyo military oo xoogaysanaya haddaba dagaalada deegaanada Xadralmawt ka soconaya ayaa waxay Sacuudigu u arkaan mid halis ku noqonaya amnigooda qowmiga ah tanina waxay soo dedejisay in General Mohammed Qahdani loo magacaabo aagaasi dowladda Sacuudiga wakiil uga noqdo dowladda Imaaraadka
ayaa saraakiisha ka socotay kuwa Sacuudiga maanta waxay la kulmeen xildhibaanada baarlamaanka guddiga golaha shuurada iyo odayaasha qabaa'ilka xadramiyiinta iyagoo ku amaanay mowqifka mas'uuliyadda leh ee ku aadan ilaalinta nabadda iyo xasilloonida Sacuudiga waxa uu arkaa wadanka Yemen aaga isaga ku dhow in ay noqoto mantiqad ka caagan dagaalada oo aan loo baahnayn halkaasi inay dhibaatooyinka ku sii kordhaan ma ku daashay safaf dhaadheer iyo khidmado qaali ah marka aad doonaysa inaad lacag dibadda u dirto ma ka walwashay in lacagtu wakhtigeeda ku gaari doonto ehelkaaga ma kaa raageen lacaga aad ku tala gashay in lagu bixiyo iskuul ama maalgelin ganacsi Safari Remit ayaa kaa haqabtiraysa baahiyaha waa adeeg lacag diris online ah oo kuu sahlaya inaad lacag dibadda ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada waa adeeg fudud degdeg ah ammaan ah khidmadiisuna ay jaban tahay Safari Remit waxa ay kuu saamaxaysaa inaad lacagtaada gaarsiiso dadka kuu muhiimka ah meel kasta oo ay joogaan goor kasta oo ay u baahan yihiin booqo barteenna www.safariremit.com Safari Remit lacag dirsasho ammaan ah iyo tayo sare dowladda wadanka la yiraahdo Lebanon ayaa ku dhawaaqaysa in ay dareemayso xaalad weyn oo ba'an oo halis ku noqonaysa jiraalka wadankaasi wasiirka amuraha dibadda ee wadanka ayaa ku dhawaaqay qayladhaan ballaaran isagoo u diray qayladhaantii ugu baanayd wadamada dunida gaar ahaan kuwa carabta iyo dunida islaamka waxana uu leeyahay Lebanon maanta waxay u baahan tahay badbaado iyo in laga difaaco Israel sida uu qeexay wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Lebanon Yusuf Raji ayaa sheegay in wadanka Lebanon uu helay dhowr dhinac oo carab ah iyo kuwa caalami ah digniino ay u soo direen oo ku saabsan in Israel ay u diyaar garowday weerar ballaaran oo military oo baahsan oo wadankooda lagu qaadi karayo Raji ayaa sheegay in dowladda Beirut ay kordhisay dadaalada diblomaasiyadeed si loo ilaaliyo Lebanon iyo kaabayaasheeda muhiimka ah halkii ay geli lahayd weeraro aad u ballaaran oo Israel ay soo qaadaan warbaahinta rasmiga ee Israel ayaa Khamiistii sheegay in militariga Israa'iiliyiintu ay dhameystireen qorshe weerar dhinac kasta oo lagu qaado xarumaha ay leeyihiin kooxda xisbiga haddii ay dowladda Lebanon ciidankeedu aysan fulin qorshihii xisbiga hubka looga dhigi lahaa dhamaadkan bisha December ee sanadka 2025 sida ku xusan warbixinta Israel ay ku sheegeen warbaahinteeda Mareykanka ayaa la ogeysiiyay baa la yiri suurtagalnimada weerar ballaaran oo dowladdaasi waa nidaamka gacan ku samayska Israel ay qaadayaan wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Lebanon ayaa sheegay in wada shaqaynta ka socota guddiga farsamada loo sameeyo kormeerka xabad joojinta Hezbollah iyo Israel ay tahay tan iyo November mid si habsami leh u socotay hasaatee Israel ay diidan tahay guddigaas ayaa ka kooban ciidamada qaramada midoobay ee Lebanon ka howlgala Mareykanka Faransiiska Israel iyo wadanka Lebanon taas oo hadda muujinaysa in ay diidan tahay Israel in arrimahaasi ay sii socdaan Raji waxa uu tilmaamay in Iran door taban ka ciyaarayso gobolka isagoo ku eedeeyay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Lebanon iyo maalgelinta kooxo aan sharci ahayn oo dowladda si weyn isku hayaan kooxdaas ayaa carabka uu ka duway balse warbaahintu waxay ku tilmaamayaan Hezbollah warbaahinta Israel ayaa toddobaadkii la soo dhaafay dhowr jeer sheegtay in qorshayaal ay militariga Israel u diyaariyeen ballaarinta weerarka ka dhanka Hezbollah hasaatee waxaa toddobaadkan muuqanaya in xiisadu ay ka sii darayso ilaa iyo haatan isla caawa wararka ka imanaya wadanka Lebanon waxa ay tilmaamayaan in silsilada weerar lagu qaaday gudaha wadankaasi kadib markii diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Israel dhowr jiho oo kala duwan iyo dhowr magaalo oo ku yaala gudaha wadanka Lebanon ay si ba'an u duqeeyeen sida ay tilmaameen inta badan duqeynta ayaa ka dhacday koonfurta iyo galbeedka iyadoo Israel ay ku goodisay in ay sii wadi doonto weerarada saldhigyada kooxaha xisbigu ay leeyihiin diyaaradaha Israel ayaa lagu soo waramayaa in ay weerareen halka loo yaqaano Al-Jamuq iyo waliba Al-Rayhan Barjul Jibaa Ansar Al-Sariya iyo Tubana iyo Wadi Xumeyn oo ku yaala dhinaca koonfurta wadankaasi halka duqeymaha sidoo kale ay ka geysteen dhowr aag oo kala duwan
oo ku yaala dhinaca galbeedka. dowladdu waxay ku tilmaamaysaa waa Lubnaan arrimahan inay ku yihiin kuwa aad u xoogan oo halis weyn ku ah jiraalka wadankaasi. dhinaca Israa'iil guutada Ridwaan ayay ku baaqeen oo ah garabka militariga iyo waliba kuwa dalaayadaha ku booda oo ay Xisballah leeyihiin in duqeymahaasi halis ba'an lagu gaarsiiyay. waxay sheegeen in jabka uu sii socon doono ilaa inta hubka laga qaadayo kooxahaasi. hase ahaatee waxaa muuqanaya in dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ay si weyn uga soo horjeedo tillaabooyinkan cusub oo ay qaadayaan nidaamkan Israa'iil. ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa tafaasiil ka bixisay ciidamada caalamiga ee la geyn doono magaalada go'doonsaneed ee muddada 2 sano ay ka soconayeen dagaaladii ugu dhimashada barnaa qarnigan 21aad ee aan hadda ku jirno, kaasi oo lagu dilay tiradii ugu badnayd oo shacab Falastiiniyiin ah iyadoo Israa'iil ay gantaalaha wada sare uga soo duqeynayeen dhulkana ay rasaas adag uga tuurayeen deegaanadu rayidku ay degan yihiin. waray faafisay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegaya in ciidamada caalamiga ee xasilinta Gaza laga yaabo in la geeyo gudaha marinkaasi horraanta bisha January ee sanadka 2026 ee fooda inagu soo haya, iyadoo qorshayaashu ay meel fiican marayaan balse weli aan la go'aamin tirada iyo qaab dhismeedka ciidamadaasi. mas-uuliyiin Mareykan ayaa codsaday in aan magacooda la shaacin, waxaana ay tilmaameen in ciidamada xasilinta aysan dagaal toos ah la gelin doonin dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta, in dhowr dal ay muujiyaan rabitaankooda inay qayb ka yihiin howlgalkan, iyo waliba in la wado dejinta xeerarka howlgalka tababarka iyo qaab dhismeedka dhismaha maamulka Falastiiniyiinta. Genaraal Mareykan ayaa qorshe u yahay in uu la wareego hogaaminta hawshan. waxaa sidoo kale la tixgelinayaa Genaraal Mareykan oo darajadiisu ay gaarayso Brigadier General in loo magacaabo taliyaha guud ee ciidamada xasilinta, inkastoo aan weli go'aan kama dambaysa laga gaarin arrintaasi. warbixinada ka imaanaya Exos ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku jiro marxaladii ugu dambeysay ee qiimeynta arrintan, dejinta qaab dhismeedka maamulka cusub ee Gaza iyo diyaarinta qorshaha lagu dhisayo ciidanka xasilinta. wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay Mark Waltz ayaa booqasho ku tagay Israa'iil toddobaadkan, waxaana uu sheegay in ra'iisul wasaare Netanyahu iyo saraakiisha sare Israa'iiliyiintu aanay wax walwala ka muujin arrintaasi, iyadoo la filayo in Mareykanka uu qaado tillaabooyin xasilin la ayuu ku yiri go'aankii uu gudbiyay Israa'iil. ikhtiyaartayna la socotay tabinta qaybtan intaas ayaan ku eebiyaa. warar kale ayaa inoo soo socda, laakiin halkan indhaha ku haya. aad baad u mahadsantiin.